وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد إلهك عبسنا النبي محمد صلينا إلهي سبحانه وتعالى وإحنا قتيبان كهرنا وإحنا لقوا جيلنا فلنا طريقة مستقيم كان قبسنا إلههم خلصونا أن عابد أنت أنكري كرنا أن كبغنا أنت أنكري كرنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا وحي الله عبد الله علي حسن جنرال عبد الله علي حسن صلي جنرال بوها ما أنت هرتي إنه ياله قف كستون أهانا oo inaga naga mida maalintiisu maray doona marka waxaan u rajeynayaa marka hore maalintiisu maray in Ilaahay u fududeeyo wax imtixaan leeyahay wixii dambi uu kulahaan Ilaahay ka dhaaf hadaan taariikhdiisa iyadaan ka soo qaato way badan tahay waayo waqtiyo badan uu soo maray waqti koritaan uu soo maray waqti dawladda Soomaaliya shaqadeeda ku jiro soo maray waqti halgan dibadda ah oo SSDF oo haragiyo dhisay ayuu soo maray waqti ka dambeeyay oo Puntland buu soo maray ilaa maanta la soo gaaray oo geeriyooday Allahu naxariiste Abdullahi Cali Mire waa magaca bisu ku lamaan yahay Caraysna waa naanays ma ahaynin carab badan laakiin dadku caruurtu magacu meel uu ka raaca marka hore Abdullahi Cali Xasan wuxuu dhashay 1948 كودي جنوي هويديس waxaa loo oran jiray Caashe Islaam Faarax Islaan Aadan waxay ahayd qoftii ugu horeysay oo gaalkacyo dugsi marcaamad quraan oo qof dumar dhigta ka furay quraanka ay dadka u dhigi jirtay Abdullahi hadii uu barbaaray markii uu gaaray waqti waxbarasho quraanka wuxuu ku bilaabay gaalkacyo ka bacdina wuxuu u wareegay Xamar halkaasoo dugsiga hoose dhexe sare oo ku dhamaystay hadduu dugsiga hoose dhexe ku dhamaystay oo secondary banaadir ka baxay kadib waxaa loo qaatay ciidamada qalabka sida Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliya 71 wuxuu ahayd ugu horeeyay oo markii waaga hore ardayga markuu imtixaanka galo sagaalnimada secondary ka baxo la qaato waxaa loo daba jiray dibadda dadka ruushka ayaa waxaa la bedelay siisan waxa lagu diri jiray kulliyadda Kismaayo ayaa la dhisay halkaas waxaa lagu talagalay in hal sano leelisa gaariska lagu diyaariyo si aqoontooda military oo basic maadaama kale akademi aadayaan iyo afka ruushka iyo shuruucda Soomaaliya loo baro hal sano kadibna markay dhamaysteen gruubka lodkoodii waxay aadeen dalka midowga Sovieti kulliyadda engineering ku bishay ayuu galay engineering-kii ayuu soo dhameeyay markuu soo dhameeyay waqtiyadii dagaaladu ka cayeen ayuu yimi 77 gadaadigiisii ka bacdi dagaalkii goobtu maray uu ka qayb galay wuxuu ka shaqeeyay guutada saddexaad ee gantaalaha engineer-ka wuxuu ahaa gantaala engineer gantaalaha ayuu soo Sam 3 ayuu soo bartay daynila ayuu ka shaqeeyay markaas xarunta guutada saddexaad ahayd ka bacdi Hargeysa ayuu saldhigga ciidanka cirka ku leeyahay ka shaqeeyay ka bacdina wuxuu ka shaqeeyay Berbera saldhigga Berbera ee ciidanka cirka ayuu ka shaqeeyay in muddo 79 horaanteedii wuxuu ku biiray ururka SSDF halkaasoo saraakiishii lagu diyaariyay oo ahaa ururka SSDF dhistay xilal kala bedelan uu ka qabtay xilal kala bedelan taliya qayb waa noqday taliya saldhig waa noqday taliya qayb u badnaa qaybaha badan oo markaas SSDF ka koobnaydna inta badan uu soo xukumay soo taliya qayba kadib markii 85 la xiray Abdullahi Yusuf hogaamiyay SSDF ee dawladda Itoobiya ee xidhay iyo kadib qoraantii 86 bishii Oktoobar waxaa la xiray Abdullahi ayaa la xiray 13 Oktoobar 13 bisha Maars waxaa la xiray saraakiishii kaleeto oo hogaaminaya ururka ciidamadiisa iyo siyaasadaba
raggaa la xiray ayuu ka mid ahaa markaa xirnaa muddo badan waxaan ku xirnay xabsiga marka hore qabridahro waan lagu xiray waan ku wada jirnay kabacdii herar ayaana loo dhaadhiciyey haddana dirna waana loo sii dhaadhiciyey shinil ayaana la geeyey oo naga mid ahaa haddana mar labaad waxaana la geeyey xabsiga booliska militariga maxaan ku rahday herar ayaana la geeyey halkaasoo sanado badan aan ku jirnay oo naga mid ahaa oo ku jiray kabacdi xabsiga dhexe owsiin herar ayaana loo wareejiyey muddo 6 sano ayaa halkaa ku dhamaysan waxay 90 iyo kowdii ayaana la soo daayay waxaan ka qayb galay dhismihii marka SSDF baa talinaysay SSDF marka maamulkii SSDF in dib loo dhiso oo dawlad la dhiso ayaa raggii talinayo SSDF golaheedii dhexe go'aan lagu gaaray go'aankaasna ka mid buu ahaa raggii gaaray oo golaha ahaa kadib waxaa la dhisay markaas dawladdii Puntland ayaa la dhisay raggii wax ka gaaray ayuu ka mid ahaa haddii SSDF golihii marka Puntland dawladdii la dhiso iyo jihadii laga soo wareegay wuxuu noqday waxaa la diyaariyey ciidamada Puntland oo noqday ciidamada oo biliis magaca guud ahaan laakiin daraawiish iyo booliska saldhigyada ah oo daraawiishta waxa ku qarsoon inay tahay militariga laakiin marka waxaan ka beeraynay in militariga lagu calaamadiyo oo xoogaa markaas codada iska jiray maadaama dawladda Soomaaliya burburay laakiin magaca guud ahaan buu ahaa daraawiish rasman wuxuu ahaa militariga Puntland ayay ahayd wuxuu ahaa maxaan ku raadayay marka taliyihii ninba salbariga la magacaabay markii hore salbariga isagoo xilki bilaabay ayuu dhintay Allah u naxariisto kadibna waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland ayaa loo magacaabay xilkaasoo uu muddo dheer hayay ilaa iyo maxaan ku raadayay laga soo gaaro 2007 laga soo gaaro ayuu xilkaas hayay inta ka dambeysay wuxuu ahaa talooyin kala badan oo la taliye madaxweynaha u badan iyo hawlo kale oo siyaasadda iyo dowladda ku taxalluqa Cabdullaahi Cali ilaa maanta laga soo gaaro ilaa maalintuu barbaaray markuu waxbarashada militariga ka soo laabtay wuxuu dalkiisa u soo qabtay talaabooyin muhiim ah oo dhaxalgala oo waaweyn oo geesinimo leh oo wadaninimo leh Soomaalinimo leh oo dadaal badan leh wuxuu muujiyey awoodiisa oo dhankiisa u soo bandhigay dalkiisa inuu u shaqeeyo dalka iyo dadka iyo diinta ayuu ku soo dhamaystay ilaa maalintii shalay ahayd oo ay ahayd tiisii uu ku dhamaatay Cabdullaahi marka wuxuu ifka kaga tegey 2 xaas iyo 11 caruura nuuro iyo hodan oo isla dadka ah 11kaas 4 gabdhood iyo 7 wiil wuxuu ahaa nin degan oo dabeecad maqaan oo bulshada Soomaaliyeed cid walba si wanaagsan uga dhaqma oo cid kasta xiriir la leh oo aan cid ka qaban ayuu ahaa tabartiisa wixii ah nin dadka uu gacanta ku hayo u dadaalo ayuu ahaa ninka isbarteen nin uusan nacayn marnaba ayuu ahaa laakiin hadda ilaahay baa la tegay wuxuuna noloshiisa ku soo dhamaystay halgan ilaa sanadkiisii ay u timi oo geeriyooday waxaan marka ku soo ururinayaa ninkaas halyeyga ah oo maanta aaska qaran halkan loogu hayo ilaa madaxweynihii Puntland iyo madaxdooda wada taagan tahay cidda uu ka tegay carruurtiisu waa yaryar raggii halganka tegay saan u lahayn adduunkaad marabka korka leefi doontaan baad bahal iska soo ururtay carruurtiisu waa yaryar xoolo lama tegin hadda labada ugu horeeya waxbarashada jaamacadda inay ku jiraan baan u malaynaya inta kalena waxbarashada ku jiraan ciddii marka hanan lahayd oo aysan xusuusteen maqnaanshaha aabbahood aysan xusuusteen ilmo aabbahood goortii wax waa dhibay timaado aabbahood maqnaanshaha uu maqan yahay ka tegey iyo meesha uu kaga tegey ayay dib u fiirinayaan waxaan dowladda cusub ku codsanayaa Siciid Cabdullaahi madaxda u yahay carruurtaasi gacanta lagu qabto isagoo wixii ka dambeeya iyo hadda kuwii hore oo jiray oo aan wax loo qaban iyo wixii ka dambeeyaba si loo xasuusto dib loogu xasuusto aabbayaasha geesiyaasha dalka
هي ضدك دينتا نقطة وصغري تاريخ دي إن سيد دبلو شلعة waxtarkii sana la ballan qaado dawladuna gacanta ku hor tahay waxbarashada iyo haday nolol tahay intaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyadoo aan soo koobay inta buugbaa laga qori karaa fara badan way taariikho dhaadheer oo kala duwan weeye laakiin waxaan ku soo ururinayaa hadda intaasaan ku soo ururinayaa waa salaamantihiin dhammaan madaxweynaha Puntland iyo dawladda cusub dawladda hore oo la saagootiyay oo madaxweynaha hadda meesha iyadoo taagan tahay iyo dhammaan walaha wasaaradda jooga saraakiisha ciidamada qalabka sida guddiga shaqaynayay odayaasha isimada ka soo qaybgalay aaska iyo maxaa dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan ee halkan joogaba salaam diiran baan u diray waxaan leenahay ilaahay Cabdullaahi cali xasan baa magaciisa rasmiga ah ilaahay samir iimaan naga siiyo asagana jannatu firdaws Allah ka waraabiyo ciidamada qalabka sida oo taagan oo amniga u taagan oo gobolba taagan oo hadda ilaahay dartii markay ka soo doodo halkan aan ku joognaa waxaan leeyahay iyagana ilaahay sameeyana ka siiyo Allah dhiso Allah quweey Puntland ma meel joogto oo nas iyo bulba u rajeeyaa iyo khayr qowraha dhamaan darisada jooga ay meesha taaganna waa magaalo dhan oo qarsoon magaaladan ilaahay baa meesha keenay iyagana dhamaantood jannada Allah ka waraabi amiin amiin jannada Allah ka waraabi كبر يشتغل الله نوقر قاضي نسنا الله يرصي بعد يسرعوا عنا في الضمين أسرع إله الجنة في الرسول ولا أنا بعد يسرعوا عنا في الضمين أنت درست هذا قاس دكان كان ودينا عكنا هذا قاس لدمان أنت خير كذا تكون الله نحرس